بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد يا هيبد يا شرف يا كرامة يا مان إسكاله. إلهي إسلام كان قديجي أنا وحوقي حيلا منك كنسن. الحمد لله نعمة الإسلام، الحمد لله نعمة الإيمان، الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله سوري والله يبو قارئة خيرك جعل إلى سبحانه وتعالى دنبيدين إي دنبيد والدينتين هدافو انت حنوسن الله عافيو انت مرغيسن مركت الله كدل قادو انت مرادك له مرادك خير الله سيو انت دمتين الله نحرست قبريده واسعيو آمين يا ربي. سون واذا أحبابي في الله مالتين ما نقرح بدن الله إنو قديو ما نعباد قرح بدن الله إيمان الله إنو قديو ما إن بدن إلهي حسن الله إنو قديو ربي يا سلسين تسكال الله نسلسيو حقها نقصو آمين. أحبابي في الله سون واذا dhammaantiin maanta waxaan wadaa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah oo ah istiqaamada iyo toosnaanta iyo ku dhaqanka ku toosnaanta diinta islaamka. ma sha Allah tabar xaalad walba ay kula gasho inaad diinta ku dhaqanto ma sha Allah ku toosnaano waayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fastaqim kama umirta waman taaba macaka. toosnaaw nabi maxamedow sidaan ku amarnay iyo kuwa macaaga ah ee kula jira ee toobada keenay wala tadqu ayuu Ilaahay xad gudbinina innahu alli bima ta'maluna basiir. wax walba aad sameeynaysan tallaabo walba aad qaadaysaan iyo camal walba aad sameeynaysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa arkaa oo waa og yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala. ma sha Allah walaalaha qaaliga ah aayadaas الحديث كسو أروري وابن عباس ورينا يوحو يرهد ما نزل لكم سودكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي في جميع قرآن كلن آية كانت أهاتي أشد مت كدرا ولا الشق كدب بدن عليه من هذه الآية. آية كدب بدن نبي آد بوجمر ولا آية داس آد بأطابتي أو آية أذق آية معنيه بأحيد أو إلهي سبحانه وتعالى وحير هذا يتوصنا وسيدانكو أمرني وتوصنا وسيدانكو أمرني وضد صحة قاد أي إلهي سبحانه وتعالى آيات كله وحليه ولو استقاموا على الطريقة هذا طريقة صحة كتو صنعتان ودين تسفي عن وقول قنتان ودين تكتو صنعتان لأسقيناهما أنقدق وحنكو رابينينا بيد بعيو واوين ساقده إلهي بايدين فرينا ولا إلهي سبحانه هذا طريقة صحة كتو صنعتان. ما شاء الله ولا لها قارقة labada aayadoodba waa aayado aad iyo aad u qiimo badan oo ay muhiim tahay inaan nolosheena ku dabaqno oo ay muhiim tahay in aan in badan aan ku soo noqoto niyadeena oo aan toosnaano oo aan ku toosnaano diinteena oo qof walba meel walba aad tagto iyo si walba oo macnaheedu dhaqankaaga isku bedelo. hadaad ganacsi samaysanaysid waa inaad ka fakartaa oo tiraahdaa ganacsiga maxay shariicada islaamka ka qabtaa, sidee baan ribo uga badbaadi karaa. hadaa guursanaysid waa inaad barataa حقوق الزوجين كي قبلوا حق اللي هي نينكو حق اللي هي هدي معنيه أولاد إلهي كسيو أولاد هذا حق يقول هذا هي واردك حق يقول هي نقنك هداد كتكتب بالشكل هدا أو تكتب سيدا قفك قال كأولاد قبل هيد سيدا قفك إسلام كأولاد قبل هيد سيدا نفط هذا أتوسن هيد سيدا أذوق أرقم لهيد وأذوق عبادة إنك وناكسن لهيد سيدا واحد لابد كستو أقاد يسيد محي شرع الإسلام كقبتها محي هاي maxay diinteenu ka qabtaa waxaan aan sameeynayo wax walba ahbaabi fil waxna ka baahayahay inaan ku sugno diinteena islaamka oo toosnaano. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu oo raah laga warinayo wuxuu yiraahday Ali in dunya adbarat adunyadu way dabar jeedisay oo way tagtay adunyadu way socotaa wa in al-aakhirata aqbalat aakhirana way ku soo qaabilaysaa fakunu noqda min abnaa'i al-aakhirah noqda dad aakhiro noqda wala takunu min abnaa'i dunya hanoqonina dadka adduunyada yarta wala laga tagaya walaalaha qaaliga ah wayna aakhiradeena u shaqeysano toosnaantaas aan toosnaanayno oo diinteena ku dhaqmayno oo ku toosnaanaynana waxay inoo sahlaysaa aakhiradeeni inoo sahlaysaa. marka ahbaabi fillah Ali bin Abi Talib wuxuu yiri adduunyadu way socotaa way dubar jeedisa way tagtay aakhirana way kugu soo fool leedahay oo way ku soo qaabilaysaa noqo qof aakhiro هنقول قف الدنيا أيوة ده ما شاء الله وراح عجيبة ومهم وأي تحقق المسلمة إنه نيجي سجليو إنه كعل عشتو إنه سنقدد الدون أو نقدد آخر ده الشقي ستين الدنيا يرتا ولا قد تجيا وأركت صلاة
shaydaankii naftu waxay ku leeyihiin dedeji 5 daqiiqo ku tuko adduunyadiina saacado badan baa siisay waqti badan baa siisay marka walaalaha qaaliga waqtigaaga saacad adduunyadaada saacadna aakhiradaada u shaqeyso insha Allah maalin baad ku liibaani doontaa maalin baad xasuusan doontaa haddii laakiin areere adduunyo noqoto maalin baad ka shalay tabin doontaa maalin baad dhihi doontaa yaa igu celiya adduunkii aan soo shaqaystay marka xabaabi fillaah waxaanu ka baahan yahay inaan toosnaano oo diinteena ku dhaqano oo diinta ku toosnaano oo wax walba aan dhahno waxaan maxay shariicada islaamka ka qabtaa oo diinta aan barano xabaabi fillaah maxaadirooyinka iyo su'aalaha culimada la weydiiyo waa su'aalo gaagaaban laakiin haddaad quraanka dhex gasho oo quraanka barashadiisa u dhaqaaqdo barato oo cilmigu ma dhamaaday kitaabada raacato social media ma sha Allah tabaaraka culimadeena kitaabo badan ay duubeen oo ka buuxa oo kitaabada barato waxaad baranaysaa talaabo walba aad qaadayso si aadan qof u weydiin ayaa ma sha Allah talaabo walba qaadayso baad fahmaysaa dhaqanka islaamku noqonaya toosnaantaadu way ku hagaagaysaa ma sha Allah tabaaraka Allah saatana ka baahan yahay ahbaabi fillaah naftayda naftiina waa ku boorinayaa ma sha Allah walaalaha qaaliga markaan intaas ka soo tago waxaan rabaa qiso yar ama barnaamij yar oo inaan idin ما شاء الله ولا له قالجة وهربا برنامج ير وما شاء الله تبارك الله أنا أنك فائدي ولا لبضنا أي كفائدي سنكران إن عن إدين شيء وما شاء الله أو كسل سن استقامة ضا يتوصلان تا يقفك إنه دين تسلام كقدقمه رنتي ولا له قالجة waxa weeye barnaamijkaasi nin siyaasi oo kamid aha dadkii madaxdii dawladii ka horeysay oo magaciisa la dhaho Fahad Yaasiin Xaaji Daahir nin la dhaho ma sha Allah ninkaasi barnaamij musalsal aha oo dadka Soomaaliyeed aad u wada sugayeen oo waxyaalo badan dadku ka dhexraadinayeen qof walba fikirkiisa iyo hubbigiisa iyo waxyaalaha uu ka helo ayuu ka dhexraadinaya dabcan laakiin aniga Faadimo ahaan ninkaas waan dhageystay barnaamijkiisa waa dhameystay waxyaalaha aan ka fahmay marka walaalaha qaaliga ina idin sheego maadaama aan ma sha Allah dad islaam nahay toosnaanta iyo dhaqanka waxyaalo badan oo ku farxay ayaa ninka barnaamijkiisa ku jiray ninkaasi walaalaha qaaliga wuxuu yiraahday waxyaalaha aan ku guuleystay number 1 waxyaalaha ku guuleystay waxa kamid buu yiraahday waxyaalaha ku guuleystay waxa weeye kitaabka Ilaahay ee Quraanka 30 juz ayaan ku guuleystay buu dhahay oo anoo da'yar aan xifdiyay oo 10 sano jiro ma sha Allah tabaarakallah iyo ducada waalidkay buu dhahay ma sha Allah tabaarakallah dabcan diinta wuu bartay ninkaasi sidoo inoo sheegay waxyaalaha ugu badan oo bartay diin waaye ma sha Allah wuxuu yiraahday waxaan ku guuleystay waxa weeye kitaabka Quraanka iyo ducada hooyaday ducada waalidka walaalaha qaaliga waa wada ogsoonahay oo Ilaahay subxaanahu nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis wuxuu leeyahay saqdul waalid سخط الرب في سخط الوالد معنيه سخط الوالد في سخط الرب أساس إنه هم الحديث كحباوي وجم غيا والدك عرض يسوع عرض إلهي عرض والدك عرض إلهي بكمتها مرك أحبابي في الله وحى مهم إن والدك أبارنا سمينه والدك يبارنا مديسة يدعيسة إن محش والدك لجور جودين لدباتين محش أوف لأوران دينتين آد بوهذا الشيء والدك وحيالها تنظكم مذكرته أي كمتهاي ما شاء الله إلى دعيسة لا أقبله حيث صدح الدعاء ودل أقبل واسق حديثك وحا كجري والدك markuu walidkiisa u duceeyo waxyaalaha uu ku guuleystay wiilka ninkaas waxa kamid ah labadaas ma sha Allah tabaarakallah labadaas ayaan anagu ku guuleysanayna ma sha Allah waxyaalaha kale oo dhaqanka islaamka ah ninkaas waxa la weydiiyay markuu uu mashquul uusan ahayn oo firaaqahayo waxyaalaha uu sameeyo siyaasadiisa iyo dhaqankiisa iyo waxa uu xukunkan iyo hay'adan heerka ku gaarsiiyayna maxay sheeg waxaad ka dhaxelaysaa barnaamijka waxa la dhahay markii aan firaaqa leh waxa sameeysaa ma kubadda banooniga ma ciyaartaa askari ma noqotay waliga hees ma dhageysatay wuxuu yiraahday intaba waligay banooni ma ciyaarin waligay hees ma dhageysan waligay wuxuu yiraahday askari ma noqon qori ma qaadin wuxuu yiraahday waxyaalaha aan markaa firaaqada hayo sameeyo wuxuu yiraahday buugaagtaad akhrisaa ma siyaasadaha maxay adduunka iyo maxay dadkaas wadamada gaalada miyaa dhageysataa may maxaa sameeysaa siiradii nabiga iyo dawladihii islaamka soo maray ayaan daraaseeyaa ayaan dib u akhriyaa
ما شاء الله تبارك الله دولة النمذا ودقن وحلقة حلية دين الإسلام كا وإلهي وحينو الشيء إنه كتاب القرآن كي سنة النبي وحبا وقتجن دقن والبودنين يالو إنه كتير أيونو الشيء مركز سياسة دا إهاية وكشقين عي سيدا وهذا الكيسة لقد حدري معيو وحوك كينا دقن الإسلام دين الإسلام كي وكدحكينا يي وحوك حرادين يسير النبي كا دقن كدولته إسلام كإيوينا الصومري أيو كدحرادين ما شاء الله تبارك الله runtii aniga ma aaminsanayn qof Soomaaliya ayaa Soomaaliya diin ku dhaqi kara wiilkaasi intuu joogay xataa hadaladiisa laga dhex dareemaya wuxuu ku dhaqay diinta islaamka waayo waxyaalaha xataa wuxuu yiraahday markaan qabtay mas'uuliyadda hay'adda ugu sareysa waxaan joojiyay buu dhahay dhaqaalihii naga soo gali jiray ajaanibta ee meelaha kale waayo meel laga keenay lama garanayo ma xalaal ba ma xaraan ba lama garanayo samaha ma sha Allah tabarakallah aad baan ugu farxay in qof Soomaali ah oo Soomaali madax ka soo noqday oo diinta ku soo dhaqay ma sha Allah runtii waxaan arkaynaa professor waaweyn oo Soomaaliyeed oo dhahaya diinta islaamka yaana lagu dhaqin wadankeena yaana lagu dhaqin dhahaya runtii waa xanuun iyo cudur nooga yimid gaalo weeye laakiin waxaan heli karnaa maanta fahad oo kale ma sha Allah marka fahad dhaqankiisa waxyaalaha maaragtay qofku ku guuleysan karo oo ninkaasi ku guuleystay waa qiso oo ku guuleystay horumarka uu gaaray waxa kamid aha in uu وسو شقية تيفية عالمية سدا الجزيرة وسو شقية عربي قيبت عربية BBC قيبت عربية أو ولبا انتو وريك بلعبي وحو النقضي نينك وقص الرئي أو أفريقيا لن أقابل سنبو النقض الله بضبا يتيفي كلا أو مقعيس الشاقي رنتي وحيالها تكو قولي سنيسين وحاوية قرآن كريم كأخرنتيسا كتدبركيسا برشديسا رنتي آد أقو قولي سنيسا هير والبو آد ربتين نواد قاريسا هدا كل قنتي ninkaas hadaladiisa laga dareemay nin diin waaye nin diinta ku dhaqmay uu ergaa runtii qofka daniga iyo waxyaalaha qaldan ma fiicna walaalaha qay qofka islaamka lama daniyo danigu waa been buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka ninkaas waxyaalaha uu ku guuleystay oo istiqaamada marka waxna loo ka baahan yahay uu ku helay waxa weeye walaalaha qaliga diinta islaamka waxna loo ka baahan yahay qof kasto islaam ah heer walba aad gaartid hadaad madaxweyne noqotid dhaqan islaam iyo ku dhaqan iyo toosnaansho iyo alla ka cabsi inaad la tagto meesha hadaa gabar tahay oo guriga hooyada ka tagtay guriga sawjkaaga tagtay sidoo kale guriga sawjkaagi guriga hooyada waxaad ku ahayd ba ku ahaanaysa Soomaha inaad dhaqanka islaamka wanaajino oo maxay istiqaamo iyo toosnaan oo diinteena ku toosnaa oo diinta ku dhaqano ba inoo fiican walaalaha qaliga hadaad maanta ganacsi samaysanaysid waa ina ganacsiga diinta ka dhexraadisa muxuu ganacsigan ribadu xageega soo gari kada sidee hadaad guursanaysid waa ina xaqay sawjka barata hadaad madax noqonaysid madaxda maxay sharciyada islaamku madaxweyne ka tiri waa ina raadisa mas'uuliyad walba qabanaysid xaq baa ku fuulaya waxa raba dhaqan ina diinta ku dhaqatid dhaqankeedii baratid baa raba hadaadan aqoon waa raadin kartaa diinteena waxba loogama tagin waxba lagu intay ilmaha daadasho ilmaha xaq uu kugu leeyahay iyo adigu xaq ku leedahay waalidka sidoo kale wax walba dhaqan walba talaabo dhaqanka adiga gudahaaga sida cibaadadaada sida adiga u dhaqantid waxa lagaaga baahan yahay ina istiqaamo iyo diinta ku saleysan lagaaga baahan yahay ma sha Allah tabarakallah qiso kale gabar ayaa waxa la yiraahday waxay maxay isbarteen nin gaal ah marka waxay ku tiraahday diinteeda soo gal aniga nin gaal ma guursanayo ninkii gaalka ahaa diinta islaamku soo galay wuu bartay dhaqankii islaamku bart gabadhii ayuu wuxuu ku yiri adiga dhaqankaagu ma ahan ba dhaqan islaam waay islaamka soo gal baa tiri runtii dad badan asaas Soomaaliyeedna laga dhaxlaa waxyaalaha aan hadda wiilka ninka hadalkiisa ka dhex fahmayno oo uu yiri markaan firaaqada hayo waxaan raadiyaa oo akhristaa oo daraasiyaa waxa weeye siiradii nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo quraanka kariimka sunnadii nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo diinta islaamka iyo waxaan aan ku dhex jiro iyo waxay diinta islaamku ka dhex ay ka qabto ayaa raadiyaa Soomaalihin Soomaha walaalaha qariga ma laga yaabaa waana laga yaabaa dad annaga ina kamid ah oo quraanka kariimka tafsiirkiisa aan aqoon oo kitaab nin gaala buug uu soo qoray akhrista oo ku dhaqma way jiraan runtii waxa lagu leeyahay buugan ma aragtay waa buug dhiirigelinta ka hadlaya akhrista buugaagta hal akhristo hada ku qor social media waxa arkaysaa buugaag intaas oo buug hal akhristo buug hebel baa la akhri ma xuma buugtii laakiin annaga waxa leenahay diin buugtaas waxay diinta aan ku banaanay ba hadii doonaa ka buuxaan laakiin annaga waxa leenahay diin kitaab
kitaabo waxaa jira maxaa sheeg qoran oo maxaa sheeg maxaa diinta ka hadlaya waxaa jira axaadiista nabiga waxaa jira qur'aan waxaa jira siiradii waxaa jira fiqi waxaa jira maxaa caqiidada kitaabada islaamka maan akhrisano inta kitaab gaal nin aan kaadidaba iska dhaqan aan akhrisanayna xabaabi fillah runtii ma sha Allah tabarakallah waxyaalaha looga dayan karo wiilkaas ama ninkaas ayay kamid tahay ma sha Allah tabarakallah inta adigan dhageysanaya aad kitaab gaal kitaabkii inta akhriso marka firaaqada leedahay daraase oo ku noqo kitaabada maxaa islaamka maxaa siirada nabiga hadaa siyaasi tahay siyaasadda diinta ka dhexraadi ha ka dhexraadin shisheeye ha ka dhexraadin Mareykan ha ka dhexraadin maxaa wadamo kale iyo waxay ku dhaqmaan diinta islaamka ayaa wax walba ku jiraan wanaag walbana aad ka helaysaa sharaf walba